Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make cold. waxaa la yidhaahdaa tu afrika guud ahaan xadhkaha badda hoostooda mara ee caalamka waa xadhiga ugu dheer 45,000 oo mayl ayaa lagu qiyaasaa waxa uu isaga tallaabaa 33 dal waxa ka faa'iidaystaa saddex qaybood oo qayb ka mida dadka dunida ku nool ee internet isticmaala 1.9 bilyan dad ah ayaa xadhigan ka faa'iidaystaa waxa uu isaga tallaabaa qaaradaha Yurub Afrika iyo Asia cid walba taariikhda waxba u gudtanta annaga taariikhda waxa noo gudtami doonta inaanu Somaliland u jideynay xagga technology-ga hadday dhul qodis tahay oo xadhigaygu xaggu soo mara aad ogtihiin hadday tahay keenitaanka xadhkaha caalamiga ah oo xadhkahaanu keenaa xadhka caalamiga yihiin kanina uu ka sii xag jiro oo uu xadhigii dunida ugu dheeraa uu yahay waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Som Cable oo runtii horumar la taaban karo ka samaysay dalka Soomaaliland dhammaantii horena waxyaabo fara badan oo horumar keentay runtii farxad weyn bay noo tahay in maanta horumaradii aanu ka wadnay dalka mid ka mid ah aad nagala soo qayb gashaan furitaankiisii runtiina waa himilo muddo badan soo socotay in ka badan 10 sano aanu ku hamiyeynay annagoo Soomaaliland ujeedadeedu ahayd in dunida ay dhinaceeda ka raacdo waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Som Cable oo runtii xadhigii labaad internationalka ha keentay taasoo ka dhigaysa inuu bilaamo habkii tiknoolajiyadda ee beeska ay u noqonaysay berberi runtii waa Somaliland iyo reer saaxilba oo u sharaf in maanta la keeno cable-kii labaad muddo bila oo runtii ay noqon doonto degmada berbera habkii qaybin lahaa anu mid uma sheegaya kaliya tilmaamaya waxa weeye maanta iyo bisha 15keedii oo xadhigii hore labada xadhig ee hore waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin fiber optic corridor sida berbera corridor ay dekada berbera u tahay in maanta aynu helay macluumaadka adduunka la isweydaarsanaya dekadii uu ka soo degi lahaa inaynu maanta iyo maalinta hore dhagax dhignay maanta waa 25kii bishii shanaad bisha shanaad gudaheega waa markii labaad halkan istaagnay ee mashruucan ku lamida anaga ka soo jiidnay waxa weeyaan waxaan arintu waxay weeyaan dadkii ku dhiiraday oo maanta aan u taaganay maxamed aw saciid kambanigiisa Som Cable ku dhiiraday in Somaliland ay soo gaarsiiyaan meesha maanta ay taagan tahay waan u arkayaba inaku la yidhgarayna Afrika aad iyo aad bay horta aanu bogaadinaya waxaan halkan anugu ka mahadnaqayaa oo aad ugu soo dhaweynayaa shirkadda Som Cable oo xadhigii labaad muddada bisha ku keentay oo leeyahay waad ku mahadsantihiin inaad xadhiga keentaan qayb weyn aad ka noqotaan horumarinta technology-ga dalka